markay ogaatay inay leedahay awood sixir ah gabadhan agoonta ah waxay go'aansatay inay isticmaasho awoodeeda si ay u xorayso qoys mas'uul ah oo uu qabsaday boqorka Shiinaha waagii hore markii dadka sixir yaqaanada ahaa waxa ay dagaal ku qaadeen noolaha oo dhan aadanaha iyo mas'uulayadu waxay mideeyeen xoogooda si ay uga adkaadaan laakiin markii dagaalka lagu guuleystay boqorkii cusub wuxuu bilaabay inuu mas'uulayada ka masayro awoodooda wuxuuna bilaabay inuu ugaarsado oo uu xabsiga dhigo maalin maalmaha ka mid ah Master Lane iyo nimankiisa oo la socday Dai waxay arkeen ilmo agoonta ah oo ku ooyaya gadaasha gaari markaasay go'aansadeen inay magaalada keenaan intii ay safarka ku jireen ilmihii uu ooyay mar walba taas oo ka yaabisay Master Lane markii ay gaareen meesha ay u socdeen Master Lane wuxuu ilmaha ku wareejiyay haweeney duq ah oo la yiraahdo Loma markay eegtay silsilada qoorta ku xiran waxay aragtaa magaca Binga oo ku qoran dhanka kale Dai wuxuu gurigiisa ku laabtay si uu hooyadiis u arko laakiin waxay ahayd daqiiqadaheeda ugu dambaysa maadaama ay qabto cudur aan daawo loo helin nasiib darro Dai laftiisa ayaa cudurkaas ku dhacay balse wuxuu ku dhaartay inuu heli doono daawo si uusan ugu dhiman sida hooyadiisa sanado badan kadib Binga waxay noqotay gabar aad ugu xamaasadaysan mas'uuliyada ku nool tuulada hooyadeedana waxay ku tiraahdaa mas'uuliyadu waa martida sharafka leh ee Master Lane maalin walba Binga waxay lahayd caado marka hore digaaga ayay quudin jirtay kadibna ukunta ayay soo aruurin jirtay si ay u geyso guriga sayidkeeda saaxiibkeeda ugu fiican wuxuu ahaa jiir yar oo ku noolaa bakhaarka markay macasalaameysay waxay u qaaday ukunta oo guriga ayay ku laabatay iyadoo aan ogaanin in jiirkii yaraa uu daba socdo markay aragtay hooyadeeda Looma oo cunto ah u sida sayidka Binga way ka xumaatay balse hooyadeed ayaa ku tiri tani waa shaqadayda inta aysan bixin jiirkii yaraa ayaa ku dhuuntay weelka si uu ula socdo markay jidka ku sii jirto Looma way dhacday cuntadiina way daadatay taasoo keentay inuu Master Lane caroodo Binga markay aragtay hooyadeeda oo in la ciqaabo la doonayo waxay go'aansatay inay iyadu cuntada geyso inkasta oo ay yar tahay haddana way ku guuleysatay inay gaarsiiso qalcadda markay halkaas timid waxay aragtay jiirkeedii yaraa oo daba socday laakiin ka hor intaysan qabanin Master Lane ayaa cuntadii ku tuuray xabsiga hoostiisa si ula kac ah ayuu jiirkii ugu riday qolkii mas'uulaska Bingana markay isku dayday inay caawiso qalcaddii waa laga eriyay laakiin halkii ay ka tegi lahayd Binga waxay go'aansatay inay ku dhuumato qalcadda habeenkii markuu Master Lane qolkiisa ku noqday Binga waxay ku degtay xadhig si ay u gaarto xabsiga hoose intii ay soo degaysay gacanteeda way goysay balse ugu dambayn jiirkeedii yaraa way heshay markaas ayay labada mas'uula ku soo dhawaadeen Yuna wuxuu adeegsaday kubad tamar ah si uu u daawayso dhaawaca gacanta kadib markay aragtay sida naxariista leh ee ay u dhaqmeen Binga waxay garatay in mas'uuliyadu aysan khatar ahayn waxayna ka caawisay Danzi inay dib ugu noqdaan dusha sare tan iyo yaraanteedii gabadha waxaa la baray in mas'uuliyadu yihiin martida sharafta leh ee Master Lane sidaa darteed weligeed ma aysan ka shakiyin in lagu qasbay inay halkaas joogaan habeenkaas markay guriga ku noqotay Binga waxay ku riyootay sawir qurux badan oo ku yaala gidaarka si lama filaan ah kubad buluug ah oo tamar ah ayaa horteeda ka soo muuqatay taas ayay raacday ilaa ay gaadhay haro halkaas ayuu Yu ku yimid wuxuuna u sheegay in kubaddaas buluuga ahi ay dab ahaantii tahay ukun la yiraahdo Kai sida uu sheegay mas'uulaaga ilmaheedu waa diyaar inay dhasho laakiin si ay u soo baxdo ukuntu waa in lagu daadiyaa biyaha harada boqortooyada mas'uulaaga si qolofka ukunta u dumo intii riyadu socotay Binga waxay ogaatay inaysan waxba iska jirin in Master Lane helay balse loo doortay inay noqoto qofka badbaadin doona mas'uulayada habeenkii dhexdiisa iyadoo hurudda ayaa dhulgariir dhacay waxayna aragtay silsiladeedii oo ifaysa markay weydiisay Looma sababta dhulgariirka hooyadii ayaa tiri mid ka mid ah martida sharafta leh ayaa la dilay markaas ayay Binga kacday oo guriga ka carartay waxayna aragtay iftiin buluug ah oo ka soo baxaya qalcadda Master Lane markuu ogaaday waxa dhacay wuxuu amray raggiisa inay jidka mas'uulaaga soo qaadaan kadibna waxay bilaabeen inay jarjaraan si qaybihiisa loo iibiyo markay aragtay muuqaalkaas naxdinta leh Binga way ooyday waxayna garatay inay qasab tahay inay wax ka qabato si ay u badbaadiso mas'uulayada subaxdii xigtay Master Dai iyo ciidamadiisii boqortooyada ayaa yimid tuulada Looma waxay amartay in Binga shaah u keento ka hor intaysan qolka gelin Binga waxay aragtay Master Lane oo la xiray maadaama boqorka uu uga shakiyay inuu lug ku lahaa dilka mas'uulaaga boqorku wuxuu amray in Master Dai bedelkiisa uu noqdo Bingana ay isaga u adeegto markaas ayuu Dai arkay jiir ku dhuumanaya buskudka dhexdiisa wuxuuna isku dayay inuu ku gubo shaah kulul laakiin Binga ayaa joojisay markay aragtay Hai oo khatar ku jirta Binga si lama filaan ah ayay gacmaheeda uga soo bixisay iftiin buluug ah waxayna ku guuleysatay inay badbaadiso saaxiibkeedii jiirka ah markuu ogaaday in gabadhu leedahay awood gaar ah Dai wuxuu go'aansaday inuu keeno hortiisa Danzi wuxuuna amray Binga inay mas'uulaaga ku qanciso inuu la socdo si uu u xaqiijiyo shakigiisa Dai wuxuu ku hanjabay inuu dilayo Binga markaasna Danzi ayaa isla markiiba soo baxay si uu gabadha u difaaco markaas ayuu Dai ogaaday in Binga ay tahay ilaaliyaha mas'uulaaga wuxuuna go'aansaday inuu sida maxbuus u isticmaalo si uu mas'uulaaga ugu qasbo inuu la shaqeeyo ciidankiisa markay aragtay saaxiibkeeda mas'uulaaga oo khatar ku jira Binga aad ayay u carootay waxayna si kama ah u sii daysay tamar xoog leh oo dadkii oo dhan ku tuuray meel fog ka hor intaysan ciidanku xirin qafiska Danzi wuu ka fakaday wuxuuna derbiga dusha uga soo boodsiiyey ukuntiisii si uu Binga ugu dhiibo markuu sidaas sameeyey mas'uulaaga waa la qabtay oo hoos ayaa loo soo jiiday Bingana way carartay si Dai uusan ugu suurtogelin inuu ukuntaas ka dhaco si uu uga hortago inay cararto Dai wuxuu u diray cayayaan sun leh si uu u qaniino laakiin markay gabadhu ku dhowdahay inay dhimato Kai ayaa badbaadiyey oo bogsiiyey Danzina wuu ka fakaday xabsiga markuu mas'uulaagu u soo dhawaanayay Dai wuxuu Binga ka tuuray buur dheer balse Danzi ayaa qabtay oo badbaadiyey markuu mas'uulaaga isku dayay inuu ilmahiisa soo qabsado kuwan ayaa falaar ku dhuftay baal ka mid ah wuxuuna ku amray
Dai inuu ukunta dhiibo maadaama uusan duuli karin. Danzi wuxuu ku dhacay webi wuxuuna Binga geeyay geeska webiga. Markay soo toostay Binga waxay ogaatay inay hadda si toos ah ula hadli karto mastuulaaga. Waxayna ku faraxday markay aragtay in jiirkeedii hay uu badqabo. Hadda oo ay xor tahay waxa kaliya ee gabadhu rabto waa inay ku laabato hooyadeeda. Laakiin markuu Danzi maqlay aad ayuu u carooday sababtoo ah wuxuu u baahan yahay caawinta ilaaliyaha mastuulaaga si uu ukuntiisa dib ugu helo. Sidaas darteed Binga waxay go'aansatay inay aado magaalada Janga si ay u badbaadiso Kai. Waxayna nafteeda ku dhaaratay in marka howlgalkaas dhamaado ay hooyadeeda dib u raadin doonto. Intii ay safarka ku jireen Binga waxay weydiisay su'aalo waxayna ka codsatay inuu u sharxo iftiinka buluuga ah ee jirkeeda ka soo baxaya. Danzi wuxuu u sheegay in iftiinkaasi la yiraahdo Shi oo ah tamar ruuxi ah oo awood badan oo ku jirta noolaha oo dhan, balse dad yar ayaa lagu doortaa inay si fiican u xakameeyaan. Saacado kadib oo socod ah labadooduba waxay gaareen buundo xarig ah. Binga ayaa go'aansatay inay marka hore gudubto, laakiin markay dhexda buundada joogtay Danzi isna wuu bilaabay inuu ku socdo. Xadhigii buundaduna wuu jabay. Isla markiiba mastuulaaga baalashiisa ayuu fidiyey si uu u duulo, balse dhaawicii baalkiisa ayaa ka hor istaagay. Nasiib wanaag intii ay dhacayeen ayay gacanta wax ku qabteen. Markay xadhigii kala goyna Binga waxay adeegsatay awoodeeda si ay dib ugu xirto. Daqiiqado kadib Danzi iyo Binga waxay si nabad ah u gaareen dusha sare. Halkaas ayay Binga ku ogaatay in shilkaasi uu ahaa qorshe uu mastuulaaga ula kacay si uu ugu baro sida loo isticmaalo awoodeeda. Kadib casharkaas waxay qaadeen waddo kale waxayna marayeen buundo dhagax ah. Markii fiidkii la gaaray waxay heleen aqal yar oo ay ku nastaan. Binga waxay dabka hortiisa ku kululeysatay jirkeedii waxayna tolaysay dhaawacii baalka Danzi iyadoo fursad u heshay inay ka aargudato cabsida uu ku sameeyay maalintaas. Subaxdii xigtay Kabtan Kuwan iyo ragiisii waxay yimaadeen qalcadda boqorka. Daina wuu la socday si uu u dhiibo ukunta mastuulaaga. Markii boqorku taabtay caafimaadkiisii si degdeg ah ayuu dib ugu helay. Dai markuu arkay arrintan wuxuu garwaaqsaday in isagana la bogsiin karo, laakiin si taas loo sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu keligiis la noqdo ukuntaas, taasna way adkaan doontaa. Si uu u ogaado sida uu tan ugu guulaysan karo Dai wuxuu u baxay god ay ka buuxa cayayaan halkaas oo uu ku fuliyo tijaabooyinkiisa ugu madow uguna qarsoon. Markuu meeshaas gaaray Dai wuxuu helay nin duq ah oo la yiraahdo Wan oo ku mashquulsan mashruuciisa gaarka ah. Wuxuuna sheegtay inuu dhowaan awood yeelan doono, laakiin Dai ma oga in ninkaasi duqa ahi uu isaguna yahay awooda mastuulaaga isla markaana uu dhowaan fariin ka helay Danzi. Isla waqtigaas Danzi iyo Binha waxay ku jireen buur u dhow magaalada Janga. Jidka ugu dhaqsaha badan ee lagu gaari karo waa biyo dhaca. Sidaas darteed Danzi wuxuu go'aansaday inuu ku dhex dabaasho isagoo soo galay godka kuna geeya dhismaha Wujin. Intii ay socdeen Danzi wuxuu ka sheekeeyay taariikhda sida dadka iyo mastuulaha ay horay isu bahaysteen si ay uga adkaadaan cadowga. Waxa uu rabay inuu maro godadkaas si uu u gaaro qalcadda boqorka. Si lama filaan ah Wan ayaa soo muuqday. Danzina dagaal ayuu u diyaar garoobay maadaama uusan aqoon ninkan. Laakiin markii uu Wan isbaray Danzi wuxuu xasuustay inuu ahaa ilaaliyihii mastuulaaga wuxuuna ku farxay inuu saaxiibkii hore mar kale la kulmo. Markuu ogaaday in Danzi khatar ugu jiro in la qabto haddii uu qalcadda galo, ninkii duqa ahaa wuxuu yidhi anigu waxaan caawin doonaa Binga inay gudaha u gasho oo ay soo ceshato ukunta Kai. Intii ay godadka ku socdeen Binga waxay weydiisatay Wan inuu ka caawiyo barashada sida loo xakameeyo awoodada maadaama uu waayo arag uu yahay. Laakiin ninka duqa ahi wuxuu uga digay in arrintani khatar tahay sababtoo ah magaaladaas qadiimiga ahi aad ayay ugu nugushahay tamar kasta oo xoog leh. Sida uu sheegay haddii xoog badan la sii daayo waxaa suuragal ah in la kiciyo ruuxyo hore oo halis ah oo halkaas ku noolaa. Sidaas darteed Binga waa inay aad uga taxadartaa. Casharkeeda ugu horeeya waxaa lagu yiri inay awoodada ku ururiso shimbiraha yar yar ee iftiinka leh oo ay ku rarto dambiilkeeda. Laakiin iyadoo weli baranaysa sida awoodda loo xakameeyo, Binga waxay si kama ah u kicisay taalo ay ka muuqdaan sixir yaqaanadii hore, taasoo cabsi ku abuurtay Wan. Si looga fogaado in ruuxyadii cadowga la kiciyo, Wan wuxuu u cararay Don wuxuuna Binga ku yiri inay raacdo. Markay ku sii dabaalanayeen albaabka qalcadda, Danzi wuxuu go'aansaday inuu weeraro waardiyaashii magaalada ilaalinayay. Mahadnaqa awoodiisa uu biyaha ku xakameeyo, Danzi wuxuu hal mar ku jebiyey dhammaan askartii wuxuuna ka gudbay magaalada Jangi. Hawshiisa xigta waxay ahayd inuu gaaro qalcadda isagoo ka badbaadaya fallaaro badan, balse Danzi wuu ogaa inay tani ku dhowaanayso wax aan macquul ahayn. Si uu isaga difaaco wuxuu adeegsaday awoodiisa si uu u sameeyo gaashaan wuxuuna si nabad ah uga gudbay waardiyaashii. Markay Binga gaadhay howlka weyn waxay maqashay Kabtan Kuwan oo boqorka u sheegaya imaatinka Danzi waxayna garatay in saaxiibkeed khatar ku jiro. Inkastoo mastuulaagaasi aad u xoog badan yahay haddana keligiis ma awoodi karo inuu ka adkaado dhammaan waardiyaasha boqorka. Markaas ayay Binga garatay inay qasab tahay inay wax qabato waxayna adeegsatay awoodeeda si ay u jebiso ciidankii difaacayay boqorka. Iyadoo kaashanaysa jiirkeeda Hai, Binga waxay ku guulaysatay inay soo ceshato ukunta kadibna daahyada ayay fuushay si ay saqafka qalcadda u gaarto ka hor inta aan waardiye cusub imaanin si ay u qabtaan. Markaas ayay bilowday inay qayliso si ay Danzi ugu yeerto iyadoo iska dhigayso in fallaar lagu dhuftay. Markuu Kabtan Kuwan arkay gabadha oo dhaawac ah wuxuu amar ku bixiyey in weerarkii la joojiyo, taasina waxay siisay Danzi fursad uu ku baxsado. Ka hor intaysan bixin Binga waxay seegtay dambiilkeedii si ay waardiyaasha u wareeriso. Intii ay ciidanku isku dayayeen inay soo celiyaan, Binga waxay baxsatay iyadoo wadata ukunta dhabta ah. Markuu Kuwan uu helay dambiilkii wuxuu ogaaday in lagu khiyaameeyey maadaama uu ka buuxay shimbiraha yar yar ee iftiinka leh. Markaas ayuu waardiye ka yaabiyey Binga. Intii ay dagaalamayeen ayaana ukuntii dhulka ku dhacday. Iyadoo isku dayaysa inay iska difaacdo, Binga waxay adeegsatay awoodeeda si ay cadowga u qabato. Daqiiqado kadib waxay ogaatay in Kai uu gacanta ku dhigay wiilka boqorka Ben waxaana khasab ku noqotay inay isaga
isaga garaacdo si ay ukunta u hesho. Markuu Ben arkay gabadha oo baxsanaysa, wuxuu dhoobada marsaday cagaha si uu raadkeeda u raaco, wuxuuna caawimaad weydiistay Captain Kwan. Kadib markay ukuntii dib u heshay, Binga waxay u tagtay Wan si uu uga caawiyo sidii ay Kai magaalada uga saari lahayd. Laakiin markay timid buundo qoryaha ah, waxay ogaatay inuu halkaas ku sugayo Dai. Markuu macalinkiisii arkay, Wan wuxuu ka codsaday inuusan dhaawicin gabadha, balse Dai wuxuu u diray caaro sun leh inay qaniinaan. Intii Binga sumaysnayd, Dai wuxuu xaday ukuntii si Kai uusan u bogsiinin. Laakiin ninka duqa ah ka hor intuusan raacin sayidkiis, wuxuu dhibic biyo ah oo uu ka soo qaaday harada nolosha afka uga shubay Binga, kadibna wuxuu galay doon. Intii Wan ku daba socday webiga, Hai ayaa isku dayay inuu kiciyo Binga, waxaana afkeeda ka soo baxay buufin sun ah. Markay soo toostay, waxay isku diyaarisay inay ukunta raadsato, balse waxaa hor istaagay Captain Kwan oo fallaar ugu hanjabay. Dhanka kale, markuu gaaray dhismaha, Dai wuxuu bilaabay xafladiisii bogsashada, isagoo doonayay inuu awoodo si uu weligiis awoodaas ugu noolaada. Hadda oo aanu u baahnayn, Wan wuxuu diray kaneecooyin sun leh si ay isaga u dilaan. Intii cayayaanku weerarayeen, Dai wuxuu galay qol si uu u helo dhammaan awoodda ukunta. Markaas ayay Binga iyo Kwan gaareen magaalada faaruqa ahayd. Bingana waxay Hai ku dirtay inuu Danzi ugu yeero. Iyagoo raacaya tamarta ka baxaysay halkaas, waxay heleen Dai, balse kaneecooyinkii ayaa weeraray. Binga waxay adeegsatay awoodeeda si ay iska difaacdo cayayaanka, balse waxay sidoo kale ku tuurtay Kwan meel fog. Markaas ayay aragtay jirkii Wan oo dhar wab ah ku duuban, waxayna u malaynaysay inuu dhintay. Laakiin ka hor intaan sunta jirkiisa gebi ahaanba aysan ku faafin, ninka duqa ah wuxuu cabay biyaha nolosha, taasina waxay u suurtagelisay inuu sunta jirkiisa ka saaro. Intii Hai Danzi raadinayay, ugu dambayn wuu helay, wuxuuna ka codsaday inuu Binga caawiyo. Markuu Danzi ogaaday in gabadhu khatar ku jirto, wuxuu adeegsaday tamartiisa oo dhan si uu ilida u jabiyo oo magaalada uu u soo galo. Markuu weerarkii ka badbaaday, Wan wuxuu ogaaday in goor dambe la joogo, sababtoo ah Dai hore ayuu u shiday qolka awoodda. Intii Kwan isku dayayay inuu galo si uu khiyaanoolaha u qabto, awooddiisa waa laga nuugay, balse wuxuu ku badbaaday dadkii uu hore u arkayay inay cadowgiisa yihiin. Inkastoo timihiisii dhan ay cadaadeen, haddana askarigu uu badbaaday. Binga waxay go'aansatay inay gudaha u gasho si ay Kai u badbaadiso, xitaa haddii ay ku weynayso nolosheeda. Laakiin ka hor intaysan Binga sii wadin hawsha, Wan ayaa naftiisa u huray, wuxuuna adeegsaday awooddiisa si uu kunta uga soo saaro qolka. Wuuna ku guulaystay, balse qiime aad u sarreeya ayuu bixiyey, sababtoo ah tamartiisii nololeed oo dhan waa la dhuuqay. Markuu jirkii ninka duqa ahaa uu burburay, goobtii oo dhan ayaa bilaabatay inay dunto. Kuwan ayaa caawiyey Binga si ay uga baxsato. Markii dhismihii uu dumay, awooddiisa halkaas ayay ku ururtay, wuxuuna ku baahay magaaladii burburtay. Ruuxyadii qadiimiga ahna waa la sii daayay. Si lama filaan ah, ciidamo ayaa soo baxay, Daina wuu ku biiray. Hadda Dai wuxuu yeeshay muuqaal cusub oo ka cabsi badan kii hore, wuxuu yeeshay geeso iyo jir miisaan leh oo mastuula la mid ah. Wuxuu ugu mahadceliyey cadowgiisa inay farageliyeen, sababtoo ah wuxuu sheegay inuu hadda ka awood badan yahay sidii uu weligiis u malaynayay. Markay aragtay inuu u soo socdo si uu kunta u qabsado, Binga waxay siisay Kwan, waxayna ku tiri meel aamin ah gee. Markaas ayay adeegsaday awooddeeda si ay Dai uga fogeyso, iyadoo mid ka mid ah tiirarka dusha kaga soo dumisay. Markuu ka soo baxay, Binga waxay isku dayday inay awoodada ku xiro, halka Kwan la dagaalamayay ciidamadii si uu u ilaaliyo Kai. Intii ay Binga isku dayaysay inay dib ula midowdo Kwan, waxaa hareeyay Dai oo ku dhawaaday inuu liqo, laakiin Danzi ayaa soo galay si uu u badbaadiyo. Intii ay dagaalamayeen, Danzi wuxuu ku amray Binga inay baxsato, balse gabadhu waxay diiday inay saaxiibkeeda ka tagto. Iyadoo caawinaysa, Danzi iyo kubad bir weyn ayaa god ku wada dhacay. Markii dagaalkii ku dhawaaday in laga guulaysto, ciidankii Kwan ayaa yimid si ay uga caawiyaan taliyahooda dagaalka lagaga soo horjeedo ciidamada. Bingana waxay ka caawisay Danzi inuu godka ka soo baxo. Markii dambe, Dai ayaa dusha sare ka soo muuqda. Danzina wuxuu weerar ku qaaday si Binga uu sii wado qorshaha. Laakiin halkii ay ka sii wadi lahayd, gabadhu waxay u tagtay mastuulaagii oo waxay weydiisatay in ay awooddooda mideeyaan si ay u jebiyaan cadowga. Markii xoolaha badan ee awoodda lagu dhufto, bahalku wuxuu bilaabay inuu nuugo tamartaas oo dhan, wuxuuna noqday mid aad u weyn oo aan godka ku habboonayn. Markii Dai uusan dhaqaaqi karin, saddexduba waxay ka faa'iidaysteen fursaddaas oo way ka carareen. Ugu dambayna bahalkii wuu qarxay. Isla markiiba dhammaan awoodda uu urursaday wuu baabay, wuxuuna tirtiray sixirolayaashii dhintay. Kadib dagaalka, Kwan wuxuu ukunta dib ugu celiyey Binga. Danzina wuxuu ku caawiyey inay Kai geyso harada sixirka ee boqortooyada mastuulayada. Laakiin dagaalkii kadib, Danzi aad buu u tabar daran yahay, wuxuuna ku dhacay xeebta ciida. Markaas ayuu Binga ku yiri, ukunta gee gudaha godka webiga, waxaana gabadhu nasiib u heshay inay aragto markii Kai dhashay. Ilmaha yar ayaa ku soo orday oo habsiiyey, kadibna aabihiis ayuu u tagay. Markii Binga cirka ay fiiriso, waxay aragtay daruuraha duufaanta oo imaanaya, taas oo ka dhigan in Danzi uu ku dhow yahay inuu dhinto. Gabadhu waxay xasuusatay biyaha nolosha oo bogsiin kara dhaawac kasta, laakiin Danzi wuxuu sheegay in haradaas ay ku taal dhinaca kale ee badweynta. Markaas Binga waxay go'aansatay inay caawiso mastuulaagii, iyadoo adeegsanaysa dhammaan tamarteeda si ay saaxiibkeeda ugu qaado cirka dushooda si uu u gaaro haradaas. Laakiin markii ay sidaas samayso, gabadhu way daashay oo way miyir beeshay. Kadib nasasho yar, waxay dib u kacday si ay u fuliso ballantii ay nafteeda la gashay, waxayna bilowday safarkeeda dib ugu noqoshada tuulada si ay hooyadeed u hesho.